بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamaa dhamaan dhageystayaasha naga dhageysanaya radio kulmiye dhanka kaleeto arka inaan wax yar ka saxo fikir aad soo jeedisay ama waxa tiri ciidanka Soomaaliland iyo dadka deegaanka waxa la yiraahdo ciidan Soomaaliland ma jiraan goboladaas waqooyi galbeed ee Soomaaliya waa dhulka Soomaaliya Somaliland waa dhulka Soomaaliya dawladda waqooyi waxa la dhigi jiray British Somaliland kuwa koonfureedna waxa la dhigi jiray Italian Somaliland sababta waxaad waa inaad ogaatiin dadka Soomaaliyeedna la gaarsiiyo erayga Somaliland waa Soomaali oo dadkii ah iyo land oo dhulka ah waa luqada Ingiriiska waaye macnaha waa maxay dad dhulkii ay lahaayeen dadka Soomaalida waaye hadday saas tahay dalka Soomaaliya guud ahaan degmo kasta iyo tuulo kasta iyo goob kasta oo kamida waa Somaliland waa in la ogaado nimankaas jooga Hargeysa ee magaca Somaliland tafaaray ee ayaga dusha saartay waa beentood waa in laga soo dhigo waxa kale oo ku soo haray marka la joogo waqooyi galbeed ee Soomaaliya ama Hargeysa la joogo waxa la dhahaa beelaha bariga iyo beesha dhexe iyo beelaha galbeedka beelaha galbeedka waxa loo jeedaa beesha Seyla iyo beesha Buurama beelaha barigana waxa loo jeedaa beesha deegaankeeda xooggeedu u yahay Laascaanood iyo beesha deegaankeeda xooggeedu u yahay Baran ama Laasqoray waxa ku soo hartay beesha dhexe waa beesha xooggeedu u degan yahay Berbera iyo Hargeysa iyo Jubilee iyo Oodweyne iyo Burco xoogooda u degan yahay sadarteed beesha soo duushay waa beesha dhexena magaca Somaliland inta qaadato iyadu bisha gashato oo magaca dawladnimo qaadato kuma soo duuli karto beelaha kale sadarteed waxa ka socda Laascaanood waa dagaal beeleed beel soo duushay iyo beel lagu soo duulay horta marka hore waa in sidaas loo fahmo waxa intaas ku soo haray eedeynta ay soo jeedisay beesha Hargeysa waa ognahay beesha Hargeysa awood ay san lahayn ayay isbeday markii awoodii ay isbeday ay shaqay weysay oo sida ay u beelaysan tahay beelaha walwadaaga ah dadka Soomaalidu waa wada beelo iyagu waa beelo oo waxa ognahay Hargeysa burcana beelaa digta Hargeysana laba beelaa digta sida ay beel u yihiin ama ayay sida beesha Laascaanoodna beelaha Soomaali uga tirsantay sida iska caadiga oo Soomaali lagu yaqaan haday beel ku soo duusho beesha lagu soo duulay garab iyo gaashaan waxay ka heshaa beelaha ay qabtisimada yihiin dawladda Soomaalida sida ognahay Soomaali badanaa degan laakiin beesha soo xigta dawladda Soomaalida qabri dahar iyo dhagax buur iyo wardheer iyo waxa soo dharay walwal beesha digta iyo beesha digta Laascaanood Soomaali waa isku xisaab waa isku koota waay 4.5 marka waxa lagu qaybsanayo hal xabay isku la jiraan marka waxa la rabaa beesha Hargeysa burka ay qaateen buudalida ha yeeshaan duulaanka gadarada ay ku soo duuleen ay ku dumiyeen magaalada Laascaanood ay ku dumiyeen 70,000 oo dumar iyo caruur ay ku qixiyeen oo maanta ay geedaha hoos fadhiyaan isbitaaladii iskuuladii hantidii dadku lahaay si gaar iyo si guud ay u burburiyeen 18 maalmood ay hubiyeen iyo madaafiic iyo taangi la dhacayeen dadka deegaanku markay waxay kari karaan intay soo kaashadeen iska jibiyeen oo iska saareen inay beel kale ay eedayaan waa u aqal xumo waana u garasho xumo waa gartay waxa ku soo hartay dadka Soomaalida dagaalkaas waa inay u arkaan dagaal duulaan ah oo dulmi xambaarsan laakiin professor iyo difaaca nafsi waa gartay Laascaanood iyo inta u timid ay ku jiraan difaaca nafsi xaqayna u leeyihiin in beelaha kale ee golwadaagta la ah ay u gurmadaan oo ay dumarka iyo caruurta la dilay oo la bixinay ay ka difaacaan Somaliland waxa ay Laascaanood
leedahay waxaa jooga dad qabiil u abaabulan oo doonaya in dhulka Somaliland ay la wareegaan waxaa xiisada keenana oo gadaal ka riixaya waa qabaa'ilada qaar oo doonaya in dhulkan ay xoog ku qabsadaan waxa soo weeraray ciidamo ka tirsan Somaliland ay ahaayeen oo ku hayb ah dadka laascaano degan sidee u dhigi karnaa beel ayaa ka soo duushay geeska oo ku soo duushay magaalada laascaano aragtidaas waa aragtida maangaabka loo sheego iyo wax magaratada iyo marin habaabinta dhulkaas oo marka hore la dhihi jiray British Somaliland Ingiriisku ma gumaysan oo tagtariido ahay markii lagu soo diray Soomaaliya 1960 waxay yimaadeen ayagoo beela ah beesha bariga waxaa la dhihi jiray adaadan adigu aadan la socon SUB ama Somali United Party xisbigaasay lahaayeen beeshan dhexe oo hadda soo duulaysa oo shaatiga Somaliland gashatay oo dulmiga iyo kibirka iyo qabka beenta ah dadka guryahooda iyo hantidooda ku baabi'inaysana waxaa la dhihi jiray SNL ama Somali National League ayaa la dhihi jiray santarteed laba beel ayagoo laba beelood ah oo beel kasta xisbi ay leedahay ayay Soomaaliya yimaadeen fikirka dhahaya Somaliland aan nahay oo dawladaan nahana fikir jira ma ah wax la dhaho Somaliland oo weligood dawlad noqdo ma jirto hadday dawlad noqdeen aawa dastuurkoodii aawa calankoodii aawa lacagtoodii aawa baarlamaankoodii aawa national anthemkoodii aawa ciidankoodii they never had the state institutions weligood dawlad ma noqon beela iskala yaacay oo isdilay oo geela kala dafayna ahaa jireen wax ay dawlad noqdeen ma jiraan laakiin halkan koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa jooga dadaan waxna garan waxna akhri waxna ogeyn oo lagu sheekaynayo dawladaan nahay Somaliland la dhahaa Soomaaliya inta yaa aqoonsan yaa dawlad aqoonsan goormay dawlad noqdeen caalamka intay kaga yaandii yaa aqoonsan wax la dhaho dawlad ma aha ninka la dhaho Muuse Biixi eeshiisa hadduu rabo hogaami kara meesha la dhaho og oo ay ku kala baxaan beesha dhexe iyo beesha bariga waa inuu ku ekaado beesha USB deegaankeeda haddii uu ku soo duulo waa nin ka soo duulay deegaanka beesha SNL ama waxay dhihi jireen mataqaanaa SNM waxay deegaankooda ka soo duulo waaye SNM dadka Soomaaliyeed uma dawlay karto waa og yihiin markii SNM ay samaysanayeen SNM waxaa samaysatay beesha dhexe ayaa samaysatay beesha dhexe markay samaysanayeen kuwaan oo laascaano degan oo USB ah ayaga miyaa xisbiga SNM la lahay lama lahayn markay burcadahayeen dawlad gaar ah ayaga ma lahay lama lahayn marka waxa ay ku soo duulayeen waa burcadnimo halkan laakiin Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa jooga dad wax magarata ah oo dawlad aqoon oo waxa meesha ka dhacay aan aqoon oo taariikh aan aqoon oo Muuse Biixi iyo maleeshiyada SNM la socotay hadday dhahaan dawlad nahay dawladda iska dhahay war dawlad ma aha intay dawlad ka noqdeen waa gartay laakiin ictiraafadiisa waxa ay ku doodaysaa Somaliland in loo geystay xasuuq dawladda Soomaaliya hore u geystay marka ayaga isku yaqaan beesha dhexe ama beesha SNM soo dawladda Somaliland ma jirto laakiin magaca ay sheegtaan ugu yeerin anaga maya ma ugu yeerayno hadii iyagu ay beesha sheegtaan beenta ma waasixinayna ma jirto waxaan dhahaynaa maamulka SNM aan dhahaynaa oo sida saxda ama waxaan dhahaynaa beesha dhexe ama waxaan dhahaynaa maleeshiyaadka ka soo duula Hargeysa aan dhahaynaa ma dhahayno mana siinayna sharciyad lamana aqbalayo in loo aqoonsado dawlad dad oo duulaan soo duulay oo beel Soomaaliyeed oo beel kale ku soo duulay oo magac dawlad ku dilaya oo dumarka iyo carruurta guryaha ku timinaya lama aqbalayo shalayto markii nidaamkii militariga Soomaaliya ee kaliya taliya raasidka ahaa uu Hargeysa uu madaafiicda ku garaacay diyaaradaha ku garaacay dadka Soomaaliyeed ee damiir kale waxay diidanayeen dadka Soomaaliyeed oo meesha ugu dhibaataynayo Muuse Biixi wuxuu kamid ahaa askartii ka gadowday dulmigaas maanta asaga Muuse Suuda ayaa Muuse Biixi ayaa wuxuu sameeyaa dulmiga oo shalay sameyn jiray Maxamed Siyaad Barre oo taliyihiisa ahay oo korneel ka dhigay oo Soviet Union u diray waliba askartiisu kamid ahaa jiray
ficilkii oo samayn jiray taliyihiisa maxamed ziyaad bare ayuuna maanta samaynayaa. dadka Soomaaliyeedna waa inay xaqiiqada ka hadlaan, waana xaqa iyo baadilku ma simana, dulmiga iyo cadliguna ma silmana. Muuse Biixi iyo maleeshiyaadka la socda waa daalimiin, waxay ku soo duuleen beel Soomaaliyeed, waxay dumiyeen propertigii dadka naftooda iyo maalkoodina waa ku tacadiyeen. sidaas darteed waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed qofkii u kaalmeyn kara reer Laascaanood oo ka difaaci kara Muuse Biixi waa ku soo duulo dulmi ugu soo duulee, hadduu joogo Jigjiga, hadduu joogo Gaalkacyo, hadduu joogo Boosaaso, hadduu joogo Beledweyne, hadduu joogo Jowhar, hadduu joogo Baydhabo, hadduu joogo Kismaayo, reer Laascaanood waa in la garab istaago lagana difaaco maleeshiyada SNM. ugu dambeyntii ma laga yaabaa arrinkan inuu sii xumaado maadaama qabaa'ilkii ay isku biratumanayaan dhinacyaduna ay qabiil u wajaheen xaalka? waxaa keenaya ninkii Nabi Maxamed wuxuu dhahay albaadi oo adlam inay qabiiladu isdilaan oo laysku habar wacdo oo laysdilo. waxaa keenay hogaamiye kooxeedka ama hogaamiyaha maleeshiyaadka SNM Muuse Biixi yaa keenay. asaga iyo inta ku taageersan dulmiga ka dhacay Laascaanood ayaana dus u heli doona, waana in la isugu tago oo la jibiyo weliba, waa in la jibiyo oo lagu celiyo difaaco dumarkii carruurta. u doona Somali Sudanes Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. bartilmaameedka Somali Sudanes waa badqabka bulshadeena.